sawirka waa nuuce ma farxii kabeer oo qaadan ba ma farxii kabeer oo si kala ba ma farxii kabeer oo qamra cabaysa ma farxii kabeer oo jaad cunaysa waa nuuce sawirka horta laga hayo sawirkaas waa idin soo gudbi doonaa waa arki doontaa Mataniha Production. Mataniha Pro. Hankon Uwamid. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك رمضان كريم أفر ونكسن سحور ونكسن مرحبا دولي بنقول داون يسوع هديت حنون سنتا إلهي وحكا قبرنا عاصمة التام إلهي دوكسيو هديت مرق سنتا إلهي وحكا قبرنا مرقتها إلهي إن وكادو خالو أوكي سياد كسار ترتام بلاتك مهردعا oo صفية tusmo oo la sheegay inay ka hayso sabir qaldan farxi kawyare iyo farxi kawyare oo ka soo hadashay sabirkaas oo idin tusi doono hadda soo dhawaada soo gala okay horta maalmahan waxa baraha bulshada ka taagneed khilaaf xooggan oo fadeexo iyo wax baan la isku laharin oo dhaxmaray abwaanka Cabdicajuun iyo Safiya Tusmo sheekada sidii u soo socotay warar waxa suuqa soo galay oo ku aadan in farxiya kawyare laga hayo sabir oo Safiya Tusmo ba iyadoo afkeeda ay ka sheegtay leedahay farxiya fiska waxaa jirta sabirkaas farxiyo way soo hadashay laf bay soo gashay oo arintu waxay tilmaamtay dadka social media hadda baad ogaateen laakiin arintan waxay ahayd arin horey u jirtay sawirka waa nuuce ma farxiya kawyare oo qaadan ba ma farxii kabeer oo si kala ba ma farxii kabeer oo qamra cabaysa ma farxii kabeer oo jaad cunaysa waa nuuce sawirka horta laga hayo farxii kabeer waa nuuce qofka xanuunka maanta qofka asiga og farxiyo waa qof wax laga hayo waxay sheegtay sawirkaas inay ka hayso Safiya Tusmo laba qof oo kaliya inay sawirkaas hayaan waa Safiya Tusmo iyo Cabdicajuun farxiyo kabeer anagana waa hayna sawirkaas labadaas qof baad sheegtay sawirkaas waa idin soo gudbi doonaa waa arki doontaan daawadayaal sawirkaas oo farxiyo kawyare ay leedahay okay farxiyo videogeeda daawanayna kadibna waxaan aadi doonaa duu ilaa yiraahdo sawirkaas nuucuu yahay iyo xaaladda farxiyo kawyare ku kaliftay in ay social media soo fadhiisato ay ka hadasho haye farxiyo inoo bilow farxiyo kawyare صفية تصمت كما خشان ورئيسي قال بحيث الكلام كي اسكتوا بطيء اي وهي دوهد ليسين يوصل لحد الطيء حتى يريك اللي يرجع يسقف من عملية يعي الشيء عايز كل شات كما بيغاري يديك ولا يدعي صوته لكن عمو بوصوله ما يسميه هذا كرا وشكتي أنا إني صبت عليك كرا أصلا لما شكين مركب ماشى مسكين وتنينا ماشى وحق سنينا وعلاد هاي عدة صور كي هي عدة بدك أنت okay farxiyo waxay noo sheegtay sawirkaas in ay hayso Safiya Tusmo dhinaca Cabdicajuun inaysan waxba ka jirin horta maanta qofka bini'aadanka mar wuu is ilaalin karaa laakiin is ilaaliska qofka uu is ilaalinayo mar bay wax ka sibxinayaan hadda sawirkan Safiya Tusmo sax way sawirkan Safiya Tusmo qaaday oo farxiyo kawyare ka qaaday qaabkii doontaa uu qaado ma iyadoo ka qaado iyadoo ogeyn ha ka qaado laakiin sidoo noqon karaa sawirka baran idin kugu sheegay musawir ay farxiyo kawyare qaabantahaba ma farxiyo kawyare oo wax cunaysaba ma farxiyo kawyare oo si ay hadda waxa sugaysaa sawirkaas inaan idin soo gudbiyo ama aad aragtaan horta waa soo ordeen waa soo gasheen mid ogaada dhamaantiinba waxaan idin sheegaa maanta qofka walaalka ah ceebtiisa ama xumaantiisa haddii aad ku faraxdo ama haddii aad usoo orado ama haddii aad rabto inaad aragto waxaan idin leeyahay daawadayaalow isdejiya farxiyo kawyare iyo Safiya Tusmo waxaas arintaas arin hore ahayd
oo dad ay dhex galeen haddana iidaa kusoo dartay oo raali bay ka ahayd oo farxii kabayare waxay ku tiri kasoo hadal xitaa waa kasoo hadli kartaa only hada sawirkaas xitaa haysa ma jirto walaa Safiya Tusmo walaa aniga walaa Cabdi Cajuun iyo walaa adiga hadda idaawanaya ee usoo orday ee soo galay ee raba in sawirkaas aad aragto horta maanta Soomaali haddii aan nahay social media heena wuxuu noqday bis yaa qaado yaa sir laga haya yaa inta ka dhacay yaa inta ka soo booday only wax kale maanta aan hayno ma jirto waxaas dhaqan xumadaas waxaa inoo bilaabo Safiya Tusmo inankan oo iska daba jiitamay oo soo raba qaadan wax aysan isku sameynina ma jirto dadkii oo dhanna maanta waxay noqdeen in xumaan la raadiyo oo kaliya maanta haddii aad wax soo sheegto wala waxaas wanaagsan cid sabta malaha laakiin maanta haddii aad dhahdo waxaasaa jiraan heblaaya qaabana ahayna haddaa dhahdid dadkii oo dhan way soo dawalayaal bil Ramadaan lagu jiraa isdajiya ilaahay ka cabsada maanta aad raadinaysaan iska daaya had waa soo ordeen muuqaalkan waxaa u daawanaysaan jecel aad ii qabtaan u daawanaysiin waxaa u daawanaysiin inaad aragtaan sawirka Farxii Kabayare only muhiimadu waa intaa wax Farxii Kabayare xitaa haddii ahay xitaa maahan waxaa isku bandhigaya ama aan soo gudbinayo waxaan idin leeyahay ittaqullah ilaahay ka cabsada waa idin waanina ani daawada aan ka bax waan idin waanina walaalayaal xumaanta aad raadinaysaan joojiya Safiya Tusmo qof dib gaaro waaye oo sidoo doonaa ku gaaro ama lugaheeda ha ku doonato ama raali ha ka ahaato ama raali ka ahaanin waa qof dib gaaray sidoo kale Farxii Kabayare waxay ka digaysaa ee ka cararaysaa social media in dhibaatadeeda la dul keeno in dhibaatadeeda ay dul timaado marka yaan dadka la isku sii ifinin yaan dadka la isku sii sameynin maanta fulay hantiis ma moogaale fulay maanta hantiis ma moogo hantiisu wala socdaa haddii wax uu sameeyay iyo haddii wax fiican uu sameeyay marka adinka waa dadka oo maanta oo waxyaabaha khaldan ku fikiraayo oo waxyaabaha xun raadinaya marka wax wanaagsan ma ahan xumaanta walaalka intaad raadi lahayd raadi wanaaga walaalka waxa waaye waxa loo baahan yahay sharaftu iyo cizigu iyo karaamadu ay mar waliba ay korayso maanta waa adduunyo bari waa aakhiro marka aakhiro aan shaqaysano adduunyada waa aad aragtaa waa mid dhib badan waa mid maanta heer waxaa maraa social media oo kaliya ee naqato yaa xaaray yaa qaawan yaa si ah ulmi in la daawado inta kale dadku ma rabaan inta kale dadku ma daawanayaan inta kale dadku uma baahna marka waxaan idinka codsanaa daawadayaal xumaanta in la iska dhaafo hadda dhammaantiin oo soo gasheen oo soo orodeen maxaad rabtaan sawirkaas inaad aragtaan Farxii Kabayare oo qaadan ama Farxii Kabayare oo si ah ama Farxii Kabayare oo nooc kale ah qurux badan maahan wax wanaagsan maahan ani waa idin fiirinaya bis reactionka aad sameynaysan oo kaliya waan idan markaa Soomaali badan dadka inta badan waxay raadiyaan waxyaabaha xun waxyaabaha qaaqaaban walaalayaal ma wanaagsan waxaan ma sii soconaa dadku way taxadarayaan dadku war fiiriye midna ogaada horta maanta waxaa jira dad badan lamaana badan oo maanta nolosha ka dhaxaysa in nolosha wadaagan ogaada war jecel dhaba hadduu idinka dhaxeeyo isma xumaynaysaa laakiin hadduu jecelkiina yahay mid liita ama gabadha xaggeeda ha ka liito ama wiilka xaggiisa ha ka liito dhibaatada way imaanay laakiin labada wiilkii gabadha waa xagga boqol hadduu ka yahay qofna qof kale ma dhibaateynayo siro badan idoo la iska hayo waxyaabo badan idoo la iska hayo marka ma wanaagsana waxaan idin leeyahay wanaagii walaaltinimada ha sarayso aan iswaansano aan iska taxadirno un maanta xumaan kaleeto waa Farxii Kabayare sawirkeeda haddii lasoo bandhigo idii gabadhaas oo isdagaalaan hal meel isla joogaan haye maxaa ka faa'iide ultimadana way heshiinayaan marka Farxii Kabayare waxaa ku leeyahay adigana taxadirkaaga muuji taxadirkaaga badi xitaa qofkaa la sheekaysanayso qofkaa wax la wadaagaysid qofkaas iska taxadir naag ha ahaato nin ha ahaato wax qurux badan ma ahan social media waa taqaanaa maanta wax kale wixii dhan waa soo dhammaadeen yaa xaaran yaa qaawan yaa isdagaalay yaa isfura only intaad leewahay ama dhaha fiyuusa la raadiy dhaha ama saan hala dhaho social media waa nuur beelay yaa nuur beel siiyey youtube-da Soomaalida qaarkood waayaa xitaa dadka ma wadan ahan marka waxaan idin leeyahay fanaaniintiin adinkana naftirkiina taxadar muujiya iska jira meelaha tagaysaan dadka la kulmaysa war fiiri maanta tintaadu qaawan coora ma ahan xitaa adoo iskeel cawa xitaa waa la ogaa fanaaniintu inay khayilaan inay wax sameeyaan laakiin waxaa jira waxyaabaha kale fawaaxishka ah ee baraha bulshada idin imaanaya haddii aad isku imaanaysaan xitaa telefoonkiina xaansho iska geliya yaan lis aaminin anaga hadda mararka qaar marka anaga fiiri hadda anaga wax manihi marka xitaa meelaha dad kulan aad tagayna fadhiisanayna xitaa waxaan jeclaa ani xaanshooyin badan hore u qaataa dadka waxaan dhahay mobiladiina meel kasta geliya waxaana bini aadam waa meelay kaa soo galaan malaweynayo
taxadar hala muujiyo dhammaantiin aad idin jeclahay daawadayaal muuqaalkan haddii aad sugaysay sawirka kabayra inaad aragto walaal ilaahay ka cabso xumaan ha usoo ordin ee wanaag usoo orod muuqaalka ayaan iskugu imaan doona habeenkaga tegaynaa sidaas iyo nabadino